ceelasha wakaaladu gacanta ku haysaa waa 32 ceel dakhliga wakaalada biyuhu waxa weeye 5 bilyan buu sare u dhaafay Soomaaliland shilina dhuumaha biyaha ee wakaaladu xilligaa ku haysay gacanta waxa ahayd 105 kilomitir maanta waxa weeye 520 kilomitir xaddiga biyaha la soo saari jiray xilligaa wuxuu ahaa 6500 mitir cubic maanta wuxuu marayaa 28,500 oo mitir cubic markii aan wakaalada biyaha Hargeysa aanu hogaaminteeda la wareegay may jirin wax biyo xidhaana maanta waxaan Cabdilaahi ku wareejinayaa biyo xidhaanka dalka ugu weyn oo ah biyo xidhaanka kal qoray laga hadlayo kaydadka biyaha amba waxa loo yaqaan barkadaha amba reservoirska waxa loo yaqaan saddex baa jiray oo Ingiriiska ka tagay maanta kaydadka aan wareejinayaa waxa weeyaan 9 kayd waxaynu joognaa xarunta wakaalada biyaha Hargeysa xarunteeda guud ee Hargeysa waxaynu ku suganahay halkan amba hoolkeere loogu talagalay arrimaha macaamiisha ay wakaaladu u adeegto madashaynu joognaa waxa weeye waa xil wareejinta wakaalada biyaha Hargeysa oo aniga waa Maxamed Cali Axmed Arooda iyo maareey xigeenkayga Ismaan Cabdilaahi Xirad aan xilka ku wareejinayno mas'uuliyiinta cusub ee loo soo magacaabay maareeyaha cusub Cabdilaahi Maxamed Ibrahim Cabdilaahi Beershiya iyo maareey xigeenka cusub Aadan Cadde waxaan salaamayaa marti sharafka nagala soo qayb galay oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Khadar Xuseen Cabdi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex Wali Cabdi Jaamac mas'uuliyiintii hore qarankan u soo adeegay Axmed Suldaan Jaambiir kamid yahay wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha gudiyada 15 xaafadood ee imika biyegelintoodii ugu dambeynta ahayd ama kama dambaysta ahayd gacanta lagu hayay oo matalayay 9,000 oo guri oo reer Hargeysa mas'uuliyiinta wakaalada biyaha Hargeysa ay ku jiraan agaasimayaasha iyo howlwadeenada kala gedisan ee wakaalada biyaha Hargeysa oo ay kamid yihiin maareeyaashii hore soo maray Musaaka Arkay Khaliif Cabdilaahi Xuseen Axmed Cali Dablama hubaynu joogo waxa runtii farxad gaaraya in 9 sano kadib markii Allah u naxariistay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo uu magacaabay inaan noqdo maareeyaha wakaalada biyaha Hargeysa December 3 2016 in maanta aan halkan ku wareejinayo xilkii wakaalada biyaha Hargeysa 9 sano kadib iyadoo ay tahay xukuumadda hadda jirta ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro tii saddexaadeen qayb kamid ah waqtigeeda la soo shaqeeyay muddada 9 sano ah waxay u ahayd wakaalada biyaha Hargeysa xilli uu ka dhacay isbedel weyn oo bedelay wakaalada biyaha Hargeysa awoodeedu dhinac walba intay gaarsiisnayd aragtida ay ka aaminsan yihiin bulshada reer Hargeysa iyo xukuumaduba xilli ay runtii isbedelka balaaran oo ka dhacay dhinacyo kala duwan 2016 December markii aan kala wareegay maareeyga horeeyay xilliga xilka maalinta hadalkaygu waxa uu ku koobnaa mahadsalaan iyo codsi aan u diray howlwadeenada wakaalada biyaha Hargeysa oo ka codsanayay inay barbar istaagaan oo ila shaqeeyaan anoo halkaa ka xusay maalinta inaanay jirin wax qabada oo maadaama cusba xilliga anigu aan soo bandhigay laakiin maanta meesha imiday aan codsanayay in la shaqeeyo anoo shaqaalahana sheegay roolka ama doorka muhiimka ay ku leeyihiin shaqada dawliga mudanayaal marweyn 9 sano kadib waxaan ku faraxsanahay inaan halkan joogaan oo wareejinayo wakaalada biyaha Hargeysa oo 9 sano iyo 46 sano ka horeeyay ay runtii shaqada wakaalada ka qabsoontay 9 sano amba horumarkay gaadhay uu ka badan yahay tan iyo markii la aasaasay xilligii dawladii Soomaaliya 27 ama 27 73 isagoo ay runtii ka runtii 9 sano ka wax qabad badan tahay walaalayaal markii aan la wareegay wakaalada biyaha Hargeysa waxaan ka bilaabayaa ceelashii markaa jiray ceelasha markaa jiray waxay ahaayeen 17 ceel 17 ka ceel waxa si joogto ah u shaqeyn jiray 11 saddex waa fadhiyeen oo muddo dheer may shaqeyn 17 kaas saddexna way qodnaayeen oo ceelasha hore leebahaayeen ma xiriirsanayn maanta oo halkan joogo bisha labaad sanadka 2026 ceelasha wakaaladu gacanta ku haysaa waa 32 ceel waxaan soo kordhinay muddada 9 sano 16 ceel oo cusub oo shaqeeya oo diyaara macni ceelasha waxaan kordhinay 94% waa 16 cusub
iyo lixdii markaa saddexna fadhiyeen saddexna aanay xidhiidhsanayn oonu xidhiidhinay markaan ka hadlo dakhliga wakaaladda biyaha Hargeysa xilligaa wuxuu ahaa 1 bilyan iyo 700 milyan oo shilinka Somaliland ah amba 1.7 bilyan Somaliland shilling maanta 9 sano kadib dakhliga wakaaladda biyuhu waxa weeye 5 bilyan buu sare u dhaafay Somaliland shilling bishii micnihii dakhliga wakaaladda waxaanu ku guuleysanay aniyo tiimkaygu amba kooxdii igala shaqeynaysa hawsha wakaaladdu inaanu kordhino boqolkiiba 294 kobaca 294 boqolkiiba inay sare u kacdo 1.7 bilyan bay ahayd waxay maraysaa maantana inuu dakhligeedu sare u dhaafo bilaha ihi 5 bilyan oo Somaliland dhuumaha biyaha ee wakaaladdu xilligaa ku haysay gacanta waxa ahayd 105 kilomitir maanta waxa weeye 520 kilomitir ayaan kordhinay 520 kilomitir weeye maanta waxa weeye boqolkiiba 500 bay korodhay boqolkiiba 500 bay kordheen dhuumaha xaddiga biyaha la soo saari jiray xilligaa wuxuu ahaa 6500 mitr cubic maanta wuxuu marayaa 28500 oo mitr cubic waa 5 foostood garanaysaan xaddiga biyaha waxaanu kordhinay 438% baan kordhinay yani waa 4 laab ka badan baa xaddigii biyaha la soo saari jiray aan kordhinay marka laga hadlayo guryaha biyaha ama macaamiisha biyaha heli jirtay waxa ay 15000 iyo 16000 u dhaxayso waa sirroog jirtay wajigii koobaad ee biyaha Hargeysa markii aanu furnay 2022 xilligii xukuumadii hore Muuse Biixi Cabdi waxaanu kordhinay 20000 oo qoys oo cusub baan xilligaa biyaha kordhinay imika waxaanu gacanta ku haynaa wajigii labaad baa dhamaaday waxaan filaynaa wajigan labaad markuu dhamaadana 30000 oo guri ugu yaraan uu dhamaaday marka waa tan guryihii imika aanu talaalano shaqo kale inoo harsan ma jirto 30000 oo cusubna inaan ku xidhno marka taasina waa guul weyn oo aynu gaarnay marka laga hadlayo kaydadka biyaha amba waxa loo yaqaan barkadaha amba reservoirska waxa loo yaqaan saddex baa jiray oo Ingiriiska ka tagay oo mid yahay taweyne magaalada Hargeysa laga waraabiyay sheedaha tayarel oo laba halka ku yaalan laba isku garab yaala iyo tayarel loo yaqaan Britishka ku taala halkan yar fi akhra buurta marka laga soo dhaadhacayo oo la sameeyay taa Britishka xilliga Ingiriiska koon kalena xilliga China maanta kaydadka aan wareejinaya waxa weeyaan 9 kayd isagoo degmooyinka Hargeysa مثلا كيد كيوينا دحه magaalada Hargeysa oo dhameystiran yahay la tijaabiyo 100% maantana uu diyaar yahay inuu shaqo galo kaweyna ku wadbur ku yaalo weey degmada Axmed Dagax waxaan kaga taganaa 3 kayd kaweyna Jarmal ku dhisay iyo 2 yararo mashruuci ka koola laga dhisay degmada Maxamuud Haybe waxaan kaga taganaa 2 kayd oo waaweyn iyo maxamed moogaan u jeeda mid waa kaman hal ku yaala midna waa hudaalka Cabdikariim Maxamed ku dhinac yaala singaha labadaas waxay hawl diyaar u yihiin hawl kale waa la tijaabiyo beebkoodii wax walba oo dhameystiran 9 kayd baan wareejinayaa maanta markii horena 3 baan ugu imiday macnaheedu waxa weeye boqolkiiba 300% inaanu kordhinay kaydadka magaalada Hargeysa markaan ka hadlana dhaamamka amba biyo xidhaanada waaweyn markii aan wakaaladda biyaha Hargeysa aanu hogaaminteeda la wareegay ma jirin wax biyo xidhaana maanta waxaan Cabdilaahi ku wareejinayaa biyo xidhaanka dalka ugu weyn oo ah biyo xidhaanka kal qoray oo aynu xariga ka jarnay bishii 9aad 2025 oo runtii tacab badan ka soo galay guud ahaanba bahda wakaaladda biyaha Hargeysa gaar ahaanna aniga oo yahay mashaariicdeeda shakhsiga xukuumaddii madaxweyne Cirro markii ay dhalatay waxaana qofkii koowaad ee hay'ad dawladeed maca salaamay 9 November laakiin haddana markii dambe noqotay in xukuumadda la sii shaqeeyo barnaamijyadii ugu muhiimsanaa ee ahayd inaan dhammaystira wax waa biyo xidhaan kal qoray biyo xidhaankaas aanu bilownay 2023 Cabdilaahi wuxuu ahaa runtii mashruuc aynaan markaa wax dhaqaale ah u haynin nin ganacsada oo reer Hargeysa oo madaxweyne Cirro sidoo ka sheegay xafladii lagu furayay dhaamka magaciisa la yiraahdo Midhiq ayaa markii koobaad 500,000 in la siiyay isagoo xukuumaddii xilligaa jirtay ra'yigeedu ahaa inaynu taa ku sameeyno laakiin aragtidaanu qabnay waxa ahayd biyo xidhaan weyn in loo baahan yahay magaalada Hargeysa maadaama aanu ogaanay biyahan hoose inay hoos u dhac ku socdo marka biyo xidhaankaas oo dhameystiran maanta waan kugu wareejinayaa waxa weeliye beertii biyo xidhaanka oo inagu talagalay dadka reer Hargeysa maadaama aanay jirin meel dalxiis ay u tagaan inay u tagaan oo Cabdilaahi laga rabo inaad sii fidiso inaad dhammaystirto waxa jooga fardii oo dhowr iyo 10 oo runtii fardaha waxay leeyihiin team koox gaar ah oo shaqeysa nadaafadooda cuntada xitaa waa loo kariyaa caafimaadkooda laga shaqeeyaa fardahana waxaan doonaynaa runtii waxyaabahan ra'yiga ku hayno waxa kamid ah dhalinyarta jaamacadu xilliyada fasaxyada in la geeyo kuwa injineerada xarumaha biyo saar ku tartamaan dhalinyarta isboortiga ku bartaan maxay fardaha ku soo bartaan marka fardaha waan kugu wareejinaynaa si caruurta loo ilaaliyo waxa rajaynaynaa kuwaana inaad si caruurta u ilaalin doonto insha Allah
gaadiidka waaweyn markii aan la wareegay gaadhiga maareeyuhu isticmaalo hadda waxaa lagu guri jiray shaqaalahana isagaa guri jiray gaadiid waaweyn wax la yaamuu jirin maanta cabdullahi waxaa ku wareejinayaa 44 iskugu jira gaadiidkii cuscuslaa iyo maxaan idhaahdaa iyo qalab weheliya gaadiidka halkan yaala ma jirto hay'ad kale oo hay'adaha dawladda oo gacanta ku haysa waxa weeyaan wakaaladda biyaha Hargeysana maaha hay'adda ugu dakhliga badan leh dalka waa hay'adaha dakhligooda meesha dhexe ku jiro laakiin waxay ku yimaadeen halabuur waxay ku yimaadeen inay naga go'onayd inaan baahida reer Hargeysa si dhab ah wax uga qabano marka gaadiidkaasi waa gaadiid tayadiisu fiican tahay waa 44 marka horena waxaan ugu yimid waa 0 marka laga hadlayo bamamka biyaha soo saara Cabdullaahi markii hore waxa ku xidhneed bamamkii yara China ka dhigay oo aanan ku bedelnay kuwa hore laftooda intii aan joogay oo runtii efficiency-gooda amba soo saarkooda aad u sareeyay maanta bamamka inoo yaala kuwii hore aad bay efficiency-gooda uga sareysaa waaweyn waana inoo shaqaynayaan dhammaantood markaan ka gudbo xarumaha wakaaladda biyaha Hargeysa Cabdullaahi marka Hargeysa laga hadlayo tan un bay ahayd xarumaha iminka maanta Hargeysa u shaqeeya waa tan waa xarunta shaybaarka waa xarunta maareynta biyaha oo siya biyo xidhaanada oo ahaan jirtay halkii loo yaqaanay godka xashiishka ee Hargeysa halkii loo yaqaanay oonu buuxinay xaafadda Xaraawar oo dhan godka xashiishka way garanayaan dadkii reer Hargeysa culayskay ku haysay waa la garanayaa in nadaafad darrada ay ku haysay godka markii aanu go'aansanay inaanu buuxino waxaanu haynay gaadiidka hal iskarogo iyo hal shay walbaanu haysan aragtida markaan go'aansanay dadku waxay u arkayeen in aanay ahayn arrin suuragal in la buuxiyo 15 kun oo tan ciida gashay waxa runtii farxadiya bulshada reer Xaraawar in caafimaad darro badan ka dulqaadnay dawladana u soo saarnay xarun weyn oo xarunta maareynta biyaha oo siya biyo xidhaanada oo hadda fulisay mashaariic waaweyn oo kamid yahay mashruuca biyo xidhaanka ka qoray waana xarunta aynu ugu talagalnay waxaan magaceedu bixinay xarunta maareynta biyaha oo siya biyo xidhaanada Center for Ground and Surface Water Management waxaan ugu talagalnay inay biyo xidhaanadana dhisto la socoto kaydka hoose biyaha ku jira isbedbedelkiisa marka warbixin bilaa ayaa la soo saaray Cabdullaahi waxaan kugu maarajinaya Cabdullaahi xarunta Center for Digitalization and Water Technology oo runtii maaha waaxaydii IT oo kale waa xarun weyn oo iyadu system iska abuurta maanta marka taana waxaan rajaynayaa inaad saa kula wareegi doonto markaan halkaa ka soo gudbo maareeyaha cusub xaruntii farxadii ah inaan ugu sidoo kale aan idinka warbixiyo dhammaantiinba Cabdullaahi marka laga soo bilaabo sanadkii 2022 waxaanu wakaaladda ku sameynay maalgelin dhameystiran ama soo dhaafaysa 13 milyan oo dollar maalgelinta waxaan ka hadlayaa ma aha kharashka shaqaalaha shidaalka waxaas waxa weeyaan waa operationkii caadiga ah waa maalgelintu waxa weeyaan capital investment markaan ka hadlayo waa waxaynu mustaqbalka ugu talagalnay mustaqbalka waayo ciladihii anigu markii aan wakaaladda darsay arkay xilligaa wakaaladdu aragtideedu waxay ahayd qasabada biyaha in la furo la xidho xaafadda la tago biilka laga soo qaado haddii ay bixin waayaan biilkana biyaha laga soo jaro markaan aragnay wakaaladdu xilligaa awoodeedu siday ahayd iyo baahida loo qabay biyaha Hargeysa ahmiyada Hargeysa taalay aad bay u kala duwanaayeen talaabadii koobaad ee qaaday anigu maareey ahaan horta waxay ahayd 2 sano ugu horeeyay wax talaabo ama qaadin haba yaraatee meeshaan darsay dadka ka shaqeynayaan bareenay isku shaandhayn maan sameyn halagaas ma bedelin 2 sano ugu horeysay waxa ay run ahaantii waxa ay muddo aan doonayay inaan ku fahmo wakaaladda biyaha Hargeysa sida ay ahayd markaad wixii fahantaad garan kartaa maxaad u baahantahay inaad ka bedesho iyo maxaad u baahantahay inaad ilaaliso marka isbedelkii koobaad ee sameeyay wuxuu ahaa horta dhalinyaro aqoontooda aad u sareyso inaan doono markaas iyadoo dhalinyartaas 3 shay shardi u haayeen qofkaas culumtu bartay inuu ahaa dadka ugu sareeya fiilkiisa ugu sareeya kalaasida dhigan jiray number 2 inuu yahay qof aan ku milmin duruufaha siyaasadda Soomaaliland in aanu ahayn qof ku dhex milmay number 3 culumta uu bartay kadib inuu ahaado qof adduunka la macaamili kara oo afka Ingiriisiga ugu hadli kara sida Soomaaliga dhalinyarta aanu keenay baa horta isbedelkii ka bilaabmay waa koow number 2 waxaanu keenay marka inaan maalgelin ku sameeyno qalabkii cuslaa oo iyadana talaabo aynu bilownay number 3 waxaanu bilownay inaan si joogto ah ula xisaabtano marka shirkadihii mashruuca gacanta ku hayo taasi markii koobaadba aanu bilownay oo xilligii xukuumaddii hore waxaanu shaqada ka saarnay 3 shirkadood oo waaweyn baanu shaqada ka saarnay xilligii xukuumadda madaxweyne Cirana hal shirkad baynu shaqada ka saarnay haddii duruufta inagu xeeran ee dalkeena ka dhacay ka jiri lahayn wakaaladda shirkad baynaan eri kareen waxaan uga jeedaa mashaariicda dibadda markay noo yimaadaan way fududahay hay'adda markaa mashruuca gacanta ku haysa iyo shirkaduhu inay isku dhex milmaan way dhaqaalaha dhex mara duruuf markaa shaqadii dawo istaagtaa wax la war maxaa dhacay
dee markay gacanta la isweydaarsado tallaabo lama qaadi karo markaa shirkadaha inaan la xisaabtanaa waxay ahayd aniga iyo maamulkaygaba 100% waxyaabaha conflict of interest amba danaha la isweydaarsado shaqaale noogu dar gaadiid noogu dar waxa aynu nadiif ka ahayn waayo haddii meeshaydin wax idin dhex mareen oo wax la kala qaatay la islama xisaabtami karo markaa xilligii xukuumaddii muuse biixi cabdi 3 shirkadood oo weyn baanu shaqada ka saarnay shirkadihii markaa mashruucii geedible gacanta ku hayay baabkii weynaa shirkada Ethiopiana ku haysay Awash World xarunta biyo soo saarka shirkad reer Soomaaliland markaa gacanta ku haysay iyo shirkad kale oo Faransiisa dhamaantood waanu bedelnay isbedelkaas wuxuu noo horseeday isla xisaabtanka ku dhisan mashruuca oo u bixinay wajigii koowaad ee biyaha Hargeysa inuu guuleysto taasoo kale aad kuma aan joogin waxaan bilownay xukuumaddii markaa jirtay inaanu la xisaabtano la xisaabtanka xukuumadda sidoo la xisaabtamaysaa inaanu dareensiino maadaama mashruucan yahay mashruuci Hargeysa xukuumaddu inay ku darto dhaqaale oo madaxweynuhu markii la doortay Muuse Biixi madaxweynaha xilligaasi qorshihii koowaad uu geeyay wuxuu ballanqaad xukuumaddii ka horeysay ay samaysay midowga Yurub oo $1 milyan in lagu daro mashruuca biyaha dawladda Soomaaliland midowga Yurubna heshiisku ahaa si aad u muujisaan waxaan idinku inaad leediin wax ku darsada marka xukuumaddii Siinaaya heshiiska saxda Allah yarxamu marka doorasho laga soo baxay madaxweynaha xilligaasi waa nagu soo riixay waxa ay xilligan ma bixin karno laakiin markii saddexaad aan kula noqono waraaq dheer baan u qoray oo ahayd markaynu ballanteennii ka soo baxnaynu shirkadaha la xisaabtami karnaa iyo ciddii waxna siisay maalintaas uu saxeexay in lagu daro $1 milyan xilligaas markaa isbedelka shaqadu horta sidaas uu inoogu bilaabmay waxyaabihii kale Cabdilaahi hirgelinay waxaa ka mid ahaa walaalo inaynu samaynay markii aynu aasaasnay xarunta maareynta biyaha hoose biyo xireenada aqoonyahan badan ay yimaadeen in la socdo kaydka hoose sidii isu bedelaya dabeeto kaydka hoose warbixin bilaaba la soo saarayay waxaan ogaanay hoos u dhac inuu ku socdo biyaha inuu jira xarumaha geedeeble dabeeto taasi warwar bay nagu abuurtay warwarka ay nagu abuurtay waxaanu samaynay markaa in sidii wax looga qaban lahaa waa aragtida ay ka dhalatay biyo xidheenka kal qoray waa aragtida ay ka dhalatay inaanu halkaa ka fulinay 2 subsurface dam oo midna hay'adda Faro mas'uuliyiintii Faro way nala joogaan Maxamed Muuse inala joogay oo iyadu mid ay maal gelisay Maxamed Muuse Faro Foundation mid ay maal gelisay midda labaadna ay wakaaladda biyuhu maal gelisay marka kii wakaaladdu maal gelisay dhaqaalihiisu wuxuu ahaa subsurface dam ka waxaan filayaa dalka ugu weyn la hirgeliyo waa mashruucii koowaad aynu fulino xarunta maareynta fuliso $250,000 baa ku baxay $250,000 waa maalgelin mustaqbalka loo sameeyay bahad mid xilliga loo baahnaa waxaanu sameeynoo kale xaruntan wakaaladda biyaha Hargeysa Cabdilaahi si fiican baad u garanaysaa xafiiska maareey wuxuu ahaa qol yaro ciriiriya oo dildilaacsan buu ahaa oo crackiska meelaha qaar aad gacanta gelin karto gidaarka maantana waxyaabaha adiga laftaada culayska kugu keeni doono waxa kamid ah xafiiska marka lagu yimaado rag badan inay yiraahdaan halkan baa kugu wanaagsanada campaign-ku kugu bilaabmo waa iska dabiici marka xafiiska iyo harkan siro badan baa ku duugan iminka waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah xilligii xukuumadda madaxweyne Cireynta aan talada la wareegin madaxweynaha hore ay la kaftamay guri dadkii oo dhow kula ciloobeen cidba kulama socoto dadku way kugu wada kacsiin wasaaradii cid la shaqeyn maysid marka waan la kaftamay waxaan ku madaxweyne miyaad ogtahay horta wasaaradda inta gobolka ku taalaba inay biyaha cabiyaan oo soo doontaan xarunta wakaaladda biyaha Hargeysa suuliyada ugu nadaafada badan lina wakaaladda biyaha Hargeysa ku yaalaan Muusaan markaa kaftameen marka waxaan ku wuri hadiiba qofkii shaqaalihiisa uu soo doonay koobkii biyaha qabooba talaagadii carabta la dhigi jiro halka dhignay dadka aynu ku talgal markii yimaadeen cabaan hadduu koobka biyaha halka soo doonanayo habliyay namadina suuliyada nadiif tahay wakaaladda soo doonanayaan maxaanu ku murmi karnaa horta ee naga dhaxeeya marka waxaan uga jeedaa taa ciyaalka dhigtay iskuulkan magaciisu ma Xuseen Geerasman ciyaalka dhigtay iskuulada waxaan uga sheegay maalintaas inanta yar 14 jirka iskuulka ku yaala suuqa bartankiisa de suulibay u baahan tahay hablu markay 14 kaysa u baaluqdo inanku meelahan oo ka wareegi karaaba eeriyadan waxaan u furnay in askarta iyo dadka jooga ku tababarnay dhalinyarta inaan lala hadli karin way yimaadaan xilliga nus saaca suuliyadaasi hablu isticmaalaan halkan ay soo fadhiistaan biyaha qabow ay cabaan xilliyada qaar geedahan gobkay soo gooyaan gobka way shiitaan waa mamnuuc qof wakaaladda inuu la hadlo iyaguna waa kalsooni bay qabaan waxay maarayaan u taginaa cidii haday soo weegto way bartaan yani waa siraha ku duugan bay kamid tahay wakaaladda biyaha Hargeysa ilmaha yare halka imaada ee bilaanu saaca laga yaabo xaafadoodii inuu ka soo baxo markuu suuliyo degan helo oo nadiif ah halkan iska yar fadhiista biyaha qabow halka yaala talaagada yare cabo runtii aragtida nidaamka dawliga ah inuu dalku wax ka shaday buu ku koreeyaa marka falsafada ku jirta Cabdilaahi waan rajaynaa inaad sii wadi doonto taasa kamid ah markan ka socdo Cabdilaahi waxaanu sameeynoo kale ceelasha warahaadleen ka hadlayo SDF inoo qoday ceel kasta mishiin gaar ah yaalay waxyaabaha aanu fulino waxa kamid ah ceelasha dabka dhexe wakaaladda ku soo xidhno waayo hadii kala shidaalku uu hawl badan ceel kasta in loo qaado
mashruuca waxaa ku waxa furisay xarunta wakaaladda furisay $113,000 waa mashaariicda mustaqbalka aynu maalgelinay ka mid ahaa waxaa ka mid ah dhaamkii labaad ee Hargeysa daraasadiisa inaanu sameeyno dhamaystirnay oo gal saxara oo geedeebla ah isagana $59,000 baa ku baxay waxaa ka mid ah Kalqoray Dam oo ku baxay $5 milyan oo ah ceelasha dooxa Kalqoray ku yaala in maxaan idhaahdaa Cabdilaahi oo ay biyaha hoos u socday ay istaagaan ay saro soo kacaan isla marhaanta loo baahan yahay in lagu xiriiriyo xarunta biyo saarka 2 kiiloomitir iyo xiriir jirta si biyaha soo garaacaysa kumanaan kun oo qoys u dhaamkuna biyo siin doona hawsha xiriirintuna waa hawlahan kugu wareejinayo adiga ku yaa $5 milyan baa ku baxay xukuumadda dhexe waxba kuma darin ninka ganacsaday wuxuu ku daray 700,000 4 milyan iyo 300,000 baa haray 3 milyan 300,000 oo kaalada u reeday waa bixisay maanta maalgelinta Kalqoray waxay naga sii taagan lacag ku dhow $1 milyan oo waxyaabaan kugu wareejinaya kamid ah Cabdilaahi waxaanu sameeynay nidaamyada IT-ga dhamaantii waanu nidaamyada casriga ah adduunka lagu la macaamilay baanu keenay waxa runtii farxadino ah in laba jeer wakaaladeenu ay ku tartantay mashaariic furan oo hay'ado badan oo Afrika iyo Latin America iyo Asia ay ku tartamayeen labada jeerna ay wakaaladu guuleystayaashii ay ku soo baxday mashruuca hore waxa weeye mashruucii iyagu maalgelinayay UN Habitat gacanta ku hayso inakii wakaalada biyaha Uganda oo isku lifaaqan baa guuleystayaashii ka wada mid noqonay 200 ilaa 300 hay'adood baa ku tartamay 3 sano u socday waa mashruuca hal-abuur ku ahaa nidaamyadan IT-geenu horumarinay fikrado badan aynu ka qaadanay buu mashruucaas horumar u ahaa mashruuca labaadna waa nidaamkii dhaamiyo barxad ka hadlayay oo ah nidaam dadkan aan qasabado u xidhnayn booyadaha iyo dameerqadyasha loogu soo dhaweynayo adeega biyaha isla marhaanta lagaga soo baarayo isagana 350 hay'adood baa ku tartamay saddexdii guuleystay baynu ka mid ahay innakii qolo reer Kenya iyo Bangladesh bay baan filayaa waxa keenay dhalinyarta aqooyahanka ee wakaaladdeena la jooga Cabdilaahi markii aanu la wareegay wakaaladda biyaha Hargeysa heshiisyadii saxiixnaa waxaa ka mid ah barnaamijyada GIS-ka lagu sameeyo xilliga isagoo heshiiskiisu saxiixan yahay yimiday marka anigu kumaan qancina guddi baan u saarayna waxay igu qanciyeen marka oo khaliifya baa ku jiraan filayaa inaan dib u dhigo maanta waxa weeyaan GIS-kii wakaaladdu u dhameystiran yahay iyadoo aynaan qandaraas bixin iyadoo macaamiisha lacag laga qaadin iyadoo dad aqoon-yahana intaynu shaqaaleynay oo imtixaankii waliba xayisiinay aynu qabano khabiir ajnabi oo reer Uganda hay'adda biyaha ee dhowrka Uganda ka shaqeeya maanta 100% bay dhameystiran tahay nidaamka GIS-ka ee wakaaladda biyaha Hargeysa maynaan oran shirkaddan qandaraas u siinana ay cid baan u dhiibanaa taa markaan ka soo gudbo xarunta maareynta biyaha hoose waxa nidaamka IT oo wakaaladda waxa ku baxay 60,000 waxaanu sameeynay 3 generator oo weyn baynu keenay oo cusub dhowrkii sano ugu dambeeyay waa $460,000 oo imika midkiiba 2 sano meelaha u shaqeynay oo maalgelinta mustaqbalka u sameeynay waxaanu maalgelinay riigii koobaad oo ay ku baxaysay isagii gaarigiisa compressor-ka ah $500,000 riiga isaga waxa Dar es Salaam Bank baynu iska kaashanay $500,000 maanta waxay naga sii taagan $183,000 bishii $10,000 baa la celiyaa waxaanu sameeynay barnaamijyadii xukuumaddan waxqabadkeeda koobaad ka mid ahaa oo ahaa well field collector 4 waxa weeyaan 7 ceel aynu qodnay 6 ceel waxaynu qodnay intii uu xilka hayay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro hal ceelna xilligii xukuumaddii hore 7 ceel haddaba Cabdilaahi isku xidhkooda waxaynu dhagax dhignay September markii madaxweynuhu xarig ka jariyay biyo xidheenka Kalqoray mashruuca caynkan waxa lagu qabtaa 3 sano ugu yaraan innaka waxaan ku dhameynay 6 bilood 6 bilood iyadoo maalintii la shaqeynay 16 saacadood laba shiftiyo kala duwan ay shaqeynay maalgelinta gashay waa $2 milyan iyo 800,000 7 ceel oo xarig beebkoodu yahay 17 kiiloomitir xarigoodu dabkuna yahay 14 kiiloomitir shaqada marka hay'adihiina la shaqeyn jiray la eego minimum 3 years laakiin naku 6 bilood baan ku dhameystirnay waxaana suuro gelinay wax qandaraas la ma bixino aqoon-yahan aad u tababaran baynu haysanaa qalabkiina waan haysanaa laba shifti baynu sameynaa maalintii isbedel 8 saacadood kala duwan taas runtii mashruucaas imika Cabdilaahi waa ku dhameystiray mashiinadii oo wiigi dhaweyd la qaaday xarka yar oo la xirxiray waxyaabo caynkaas mooyaane 100% mashruucaasi waa ku dhameys 2 milyan 800 Cabdilaahi sanadkan la fuliyay $1 milyan wakaaladda maalgeliso cash oo naga baxay ma ahayn deyn $1 milyan 800 waa maalgelin Dar es Salaam Bank ay noo sameysay oo isaguna runtii bilo lagu celiyo lacag go'an waana waxyaabaan kugu wareejinayo maalgelinta ugu weyn waxay ka taagan tahay waxa weeyaan waa mashruucaas oo ka taagan tahay lacag almost yiriga $2 milyan waa koow waxay noo yaalay community-ga Husu project completion mashruucii hore Cabdilaahi oo dhameystirnay wajigii koowaad biyaha Hargeysa ee 20,000 oo qoys baa biyo ka helay $1 milyan bay wakaaladdu ku dartay bariga xukuumadda xilliga jirtay $2 milyan marka $2 milyan ku qorna $1 milyan oo wakaaladda ku qoran ka kaalay geedeeble ama deegaanka biyo saarka maxaynu qabanay maxaynu ka hirgelinay oo meeshii noloshoodu ka soo baxaysay dadkii beerahooda ceelasha laga qodaya
dadka ay saamaynta ku leedahay shidaalka halkaa lagu isticmaalaya ka imanaya dhibaatooyinkiisu. horta saldhigga Geedeeble waxaan dhisnay intii aan xilka hayay wakaaladda biyaha Hargeysa. xanaanada Geedeeble waxaan dhisnay intii aan xilka wakaaladda biyaha Hargeysa haynay oo aniga dhisay intii aan maamulka hogaaminayay. waa kow waxaa hadda gacanta lagu hayaa oo meel dhamaad ku dhow maraya dugsigii sare Geedeeble oo maamulihiisiina aynu diyaarinay aqooyahana oo isaguna aan jecelahay inuu halkan joogo. dugsigaas sare dhamaystirkiisana Cabdilaahi waxyaabaha la wareegayso ceelka tuulada wadaan u socda oo aan weli dhamaan oo waxyaabaha la wareegayso insha Allah dhamaystirayso aan kugu ducaynay dhamaystiri doonto. waxaynu sidoo kale samaynay shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa oo si aynu maareey ku soo kala war qaadanay shaybaar Soomaaliland oo dhan u adeega shaybaar kala shaqeeya ee si buuxda u shaqeeya ee dalku leeyahay shaybaar wax ka bedelay badqabka iyo saxada biyaha dalka maadaama biyo lagu baarayo awlalkii Dubai ama Nairobi ama Addis Ababa loo diri jiray maanta Hargeysa lagu baaraa biyaha xamar Hargeysa la keenaa kuwa Garowe Hargeysa la keenaa ka dhuusa Mareeb Hargeysa la keenaa wanaagii kaftameynay idinka sheekeynayay sheekooyinka naga soo maray marka shaybaarkaasi si buuxda inagu shaqeeya dadka joogaana waa dad aqoontooda runtii aad u sareyso halkaas waxa ku dhan maalgelin sare u dhaafaysa 13 milyan oo dollar oo aynu ku sameynay wakaaladda biyaha Hargeysa maalgelinta maanta waxa ka taagan wax hoos u dhaafaya 3 milyan iyo 900 kun oo deynta maxaan maalgelinta bangiga Dar es Salaam ee bilaha loo celinayo maanta haddaba Cabdilaahi hawlaha socday wajiga labaad ee mashruuca biyaha Hargeysa waa ku gabagabo oo waa dhamaaday xafladiisuna waxa ahayd inaanu furno bisha labaad ee sanadka 2026 xafladana adaa qaban doono anigana igu matali doona toddobada ceel way ku qodayiin waa ku xiriirsan yiin nidaamkooda dabku waa ku xiriirsan yahay mishiinadii waan geynay biyagelintii Hargeysa dadku way isku ka dhacsan yiin saddex shay bayna ku guuleysanay mid waxa weeyaan kalsoonida shacabka Hargeysa inaan helno wakaaladda biyaha Hargeysa maalintan la wareegay culayska ugu badan ee haystay waxa ahayd wakaaladdu inay tahay mid ka mid ah hay'adaha bulshada reer Hargeysa ay aad ugu kala qaybsan yihiin xagga aragtida amba sida loo arko laakiin taa waxaan ku xaliyay anoo ka hawlgeliyay halkan aqooyahan aad u fara badan oo reer Soomaaliland oo dhan gaar ahaan deegaanadii cabashadu ka jirtay si gaar ah xilligii uu xukuumadda wareejinayay madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi agaasimayaasha wakaaladdu maanta ka hadli maayo oo xilligu wareejinay agaasimayaasha wakaaladdu maalintan la wareegay anigu xilligii xukuumaddii madaxweyne Siilay Allah yarxamo iyo maalintuu wareejinayay aad bay u kala duwan xagga aqoontooda iyo dadka joogay iyo meelaha ay ka kala yimaadeen waa mid ka mid ah waxyaabihii aanu ku kasbanay kalsoonida reer Hargeysa in si toos ah loo taabto meelaha dhibaatooyinku ka jirtay oo maanta degmo kastoo Hargeysa ku taala dhalinyar badan oo aqooyahanaba ku rawaxa subaxiina ka soo shaqo taga marka taa waad ogaan doontaa waxaanu kasbanay kalsoonida reer Hargeysa inay qaadaankooda ku darsadaan wakaaladda imika 15 xaafadood qaadaankoodu waa la baxeen ee halkan fadhiya maanta 9 ka mid ah shaqadoodu waa dhamaatay 6 hadhayn aadan ku wareejinana 40 xaafadoodna waa diyaar u lacagta naga qabtay leeyin waxa lagu yiri waa rukaadii horta shaqada hore aanu dhamaystirno Cabdilaahi waxaan kugu wareejinayaa wakaalad ay aamineen bangiyadii gaarka loo lahaa ee dalku waa hay'adda kala hatay maalgelinta leeg ay ku aaminaan bangiyada dalku gaar ahaan bangiga Dar es Salaam oo madaxdiisii nin kamid uu ku daba fadhiyo oo na intii koowaad maadaama systemskii wakaaladdu ay noqdeen transparent 100% bangiyadii gaarka loo lahaa baa aaminay Cabdilaahi waxaan kugu wareejinayaa hay'ad ay aamineen deeq-bixiyaasha caalamiga ah mashruucii Jarmalku markii uu dhamaaday kii koowaad isagoo markaa aynaan furin wali 18 milyan oo euro aynu siiyeen cusub haddii kii hore aynu wax ka khaldi lahayn maalgelintan dambe aad adigu fulin doonto insha Allah adiga xukuumadda hadda jirta maynaan helan waana 18 milyan oo euro cusub waxaan kugu wareejinayaa Cabdilaahi hay'ad loo qiray isla xisaabtanka ay shirkadaha la xisaabtana inay meesha ka saartay inaanu jirin wax musuqmaasuq amba madmadow ah waaye dalka markay yimaadaan hay'adaha waxayna la qabanayaan wasaaraduhu iyaga difaaca cidii mashruuca loo dhiibay project manager ku fiican hebel uu fiican xantiina waa hayaan inay shaqadu xun tahay xantiina cid waxayna siisay xantiina waa haysaa in wax khaldayin laakiin mas'uuliyiintu way difaacayaan wakaaladdu waxay hay'adda kala atay gaadhay ilaa safiirka midowga Yurub iyadoo cidii la shaqeynaysa ka cabanaysa inay waraaqa u qorto ilaa safiirka ambassador Nicholas Berlanga iyo safiirkii ka dambeeyay xilliga waraaqa u qorto oo shirkadii shaqada ka saarno oo cidii shaqada loo dhiibay aynu ka dhigno 100% inay accountable u noqdaan waxyaabaha aynu ka hirgelino waxa kamid ahaa inaynu meesha ka saarnay hawlwadeennada wakaaladda in mushahar laga siiyo mashaariicda dibadda total oo qofka u shaqeynaya wakaaladdu wax noloshiisa ku filan ay siiso waxaynu meesha ka saarnay markay safarada baxayaan inay safarada laga bixiyo shaqaaleena waxaynu meesha ka saarnay haddii casuumadi jirto in casuumadaasi ay noqoto mid ay wakaaladdu samaysay ee shirkaduhu aanay samayn waxaynu meesha ka saarnay haddii uu shir jiro
in lagu shiro xafiiska wakaaladda in la tegin xafiiska shirkada waana ka mamnuuc howlwadeennada wakaaladda biyuhu inay tagaan hay'adaha inala shaqaynaya xafiisyadoona halkana yimaadaan taasi waxay sare u qaatay qalsoonidii howlwadeennada wakaaladda waxay caddaysay xuduuddii u dhaxaysay cidday noo shaqaynaysaa iyo cidda loo shaqaynayo ah wakaaladda biyaha Hargeysa waxaan ku qanacsanahay maanta inaanu ka jirin dhaqanka wasaaradaha ragaadiye ah halkan igu ataajkare iyo mashruuc hebel lagu qoro dhaqankaasi ma jiro wakaaladda biyaha Hargeysa Cabdilaahi hay'adaasaan kugu wareejinayaa isla xisaabtanka lagu bartay xuduudaheedu cad yihiin aqoonyahan ay joogaan caalamka la macaamilay waxaan kugu wareejinayaa hay'ad maareeyuhu aanu ka qayb galin safar dibadeed ilaa uu diro dadkii shaqada lahaa laba jeer bay tiimamkeenu Jarmalka u baxeen labada jeerba waxaa baxay dadkii shaqada lahaa Rwanda u baxeen Uganda u baxeen meel kastoo ay tagaan waayo sida caadada waxayna haysataa safar yar oo Nairobi ah oo agaasimo waaxeed wax ka hooseeya wasiirku inuu shandadiisa qaato tago waa dhaqamada aynu baahannahay Soomaaliland inaan ka rano waxyaabahan taa u sameeyay waxa weeyaan maanta markaan ka wareegay xilka wakaaladda biyaha Hargeysa inay joogaan team 100% mas'uuliyadooda garanaya wax fulin kara Cabdilaahi raggan kugu wareejinay waa rag malaayiin dollar intaan u dhiibay aanan u fiirfiirsan waqtigii aan u qabtay iyo shaqadii aan u qabtayna xilligeedii kaga soo baxay ayaa kugu wareejinaya markaan saddexdaa qodob ka tagay Cabdilaahi waxaan maanta raggii markii lagu u tartamayo wakaaladda biyaha Hargeysa qofkii ugu haboonaa in anigu magacaabi lahaa hadaan halka madaxweynaha ku jiro adiga aad horta oo taa ka mas'uul maay qofkii ugu haboonaa adigu ahaa shaqo cusub aad la wareegtay waxaan kugu dhiiri gelinayaa marka hore si wasaaradaha ka dhacday inaanad samayn oo ah inaad isku shaandhayn iyadoo qalanka iyo suudkii iyo taayga la xidhan yahay Facebook la wasiir hebel baa isku shaandhayn sameeyay waxaan kugu dhiiri gelinayaa horta meesha inaad barato tiimka jooga nin walba xilligii dhaamkii March kalqori aan wadnay March 2023 markaan soo bilownay madaxweynaha horaan maalin Jimcaha kulanay markaasuu igu yiri war dhaamkeen tagna gaadhimo isku yar baan wata gaadhigiisa raacno waan tagnay qalabkan oo wada cusub markaa dhex maray marka waa kii isaguna kaftanka badnaan soo igu yiri waa shirkad gaar loo leeyahay baad samaysatay marka waxaan ku yiri madaxweynaha aanu shirkad gaar loo leeyahay ma samaysan maanta wakaaladda waxa jooga ugu yaraan 8 qof oo diyaar u ah inay bedelaan aniga amba ilaa aqoona amba iga aqoon badan marka horta dadka jooga ma hagaasiba waaxid runtii waa dad kalsoonidooda shaqaday qabteen iyo hawl doorkay wakaaladda ugu jiraan runtii agaasimo waaxidka wasaaradaha jooga oo runtii aad uga duwan yahay Cabdilaahi 9 sano kadib waxaan aaminsanahay inuu waajibkii qaranka iga saarnaa inaan ka soo baxay waayo 46 sano iga horeeyay dhinac walba markaad eegto wakaaladda iyo 9 saneen joogay way kala duwaneed waxyaabaha noo hirgeliyo waxa kamid Cabdilaahi hal qandaraas ma aan bixin qandaraas wax la yiraahdo ma aan bixin waxaan diyaarnay wakaaladda tiimkeeda iyo qalabkeeda iyo wixeedu inay fulin karaan waxaanu ka dhignay danta wakaaladdu inay noqoto number 1 cid kasta hadii aan isku seegano aniga danta wakaaladdu inay noqoto maxamed waa nin dabeecad xun waa nin engegan waa reemi wax kasta ha la yiraahdo laakiin danta wakaaladda ayaa runtii ka horeysay Cabdilaahi maanta mashruuca weynaad fulin doontaa marka laga tago kanood xafladiisa qaban doonta insha Allah maalmaha soo socda waftigii koobaad ee Jarmalkuna ay imanayaan 28 February si commissioning ama furitaankii koobaad ay u sameeyeen 28 bishan insha Allah oo ah waxyaabahan kugu soo dedejinaya xil wareejinta mashruuca 18 milyan la wareegi doonta insha Allah waxaan rajaynayaa tiimka halkan jooga in Cali Daaro daacad uma ahayn reer gaar ma ahayn inaad kalsooni buuxda ku qabi doonto iyaguna runtii guushaada qayb weyn bay ka noqon doonaa Cabdilaahi marka taa laga tago waxaan halkan wareejinayaa xilkaan oo 100% ku niyadsan cidayga la wareegtay waxaan runtii ku niyad samahay madaxweyne Ciro sanadkii aan wada shaqeynay inaan runtii si wanaagsan oo qurux badan aan u soo wada shaqeynay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaan anigoo runtiina markii siyaasad ahaan saan marar badan oo xilka hayaba sheegay aan ku kala duwaneen siyaasadda oo xisbiga wadani iyo xukuumaddu ka dhalatay ana xukuumadii kala dambeeyay xisbiga kulmiyaan muddo dheer ka soo tirsanaa inkastoo aan xisbiga kulmiye ka hayn maanta waxaan runtii ahayd go'aankan qaatay anigu inaan si iskay u baneeyo hawsha wakaaladda biyaha Hargeysa midaan warkayna xilligeedii taagan tahay wax xumaani kuma jirin wax niyad xumi kuma jirin xilligeedii taagan tahay markii madaxweynuhu Jaaniska siiyay inaan dhamays sii wada shaqada saddex qodob ay igu taagnaa waan fuliyay saddexdiiba biir xireenka kala qori waan furnay ceelashii cusbaa waan qodnay systemkiina waan isku xidhnay maantana guul baynu taaganahay waxaan rajaynayaa guusha adiga xukuumadda aad ka tirsan tahayba inaad si qurux badan ugu dabaaldegi doontaan hawsha biyo-gelinta Hargeysa oo rajaynay ilaa 30 kun oo guryo cusubna inaad halka ka soo wadi doontaan kalsoonida tiimkaaga ku qabtaana waxay noqon doontaa qodobka koobaad waxaan hawl kale halkan kaga hadli maayo maareeya cusub oo waxaan u mahadnaqay horta maareeya ku-xigeenkaygii hore Ismaan Cabdilaahi Hired oo nin oday runtii ahaa guurtii ahaa aniga laftaydana odayay ahaa hawl wanaagsan runtii aanu halkan ka soo wada qabanay saaxiibkay Ismaan Cabdilaahi Hired inkastoo kaftanka kaga yaraadka
وأنا mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa bahda wakaalada biyaha Hargeysa ee soo wada shaqeynay muddada dheer hablaha faraha badan ee dhalinyarta ee wajigoodu rajada iyo diilada badan ka muuqato inamada dhalinyarta ah agaasimayaasha waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo runtii qayb ka ahayd shaqadan halkan gaarnay waxaan u mahadnaqayaa ganacsatada muddada dheer la soo shaqeysay Cali Ibrahim Ciise Cali Waraabe ma filayo inuu halkan joogo Cali Waraabe oo runtii hawl weyn wakaalada qayb ka ahaa oo wakaalada uu ahaa bangi runtii markaan sheego xilliyadan bangiga dhexe lacag laga helin waa mishiima ka istaagay adoon filayn Cali Waraabe ninkaasi xuquuq badan buu ku leeyahay wakaalada kaba macaasho laakiin xuquuq badan buu ku leeyahay waxaan rajaynayaa inaad ilaalin doonto waxaan kaloo u mahadnaqayaa Gamuur oo ah maanta keenay warshad dalka laga leeyahay oo sameynaysa warshada pipe-ka samaysa oo halkan fadhiyo markii baabkaanu tijaabinay tijaabadeedana dib baad u noqon doontaa dib baad u tijaabin doontaa baabka ugu wanaagsana sameeya Hargeysa waxaan u mahadnaqayaa runtii ugu dambeyn madaxweynaha qaranka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro sanadkii aan la soo shaqeynayay niyad samaan baan kaga degay xukuumadda niyad samaantaan kaga tegin waxaan rajaynayaa inaad idinkuna shaqada ku dhameystiri doontaan waxaan u mahadnaqayaa madaxweynihii hore iyo madaxweynihii koowaad ee fursadaysiiyay qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Allah yarxamu ilaahay u naxariisto madaxweynihii ka dambeeyay oo ahaa ninkii muddada dheer aan soo wada shaqeynay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo runtii saan marar badan sheegana aragtidayda siyaasiga saameyn badan ku lahaa Cabdilaahow saan hore kugu ballan qaaday wakaalada haddii aan ka dhaqaaqay maanta horta xaban maayo waa koow meelahan hodheelada soo fadhiisan maayo waa laba oo dhan maayo wakaaladii baa saan noqotay waxaan ahay qof ka mid ah bahda wakaalada oo hadday wax u xumaado haddaan xitaa xukuumadda mucaarada ay jirtaa wakaalada laakiin shaqaale ka mid ah baan markaad u baahato waad yeedhi kartaa adu nin walaalkay baa too isku xaafad baynu ahayn marka horena isku xaafad baynu ahayn isku asxaab baynu ahayn marka mar walba horta runtii Cabdilaahow garabkaagaan ahay 100% adiga maare ku xigeenkaagaba waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo runtii sama noo soo rajaysay oo nagu garab istaagtay hawsha wakaalada biyaha Hargeysa waxaan u mahadnaqayaa bulshada reer Hargeysa ee kala duwan runtii guri kastoo Hargeysa iyadoo doorashadii dhacday 2024 May 24 dhamaadkeedii dhacday ka hor aniga guri kastoo reer Hargeysa waa la igu soo dhaweeyay degmo kastoo Hargeysa guri lagu casuumin runtii ma jirin kala qaybsanaanta siyaasaduna halkay mareysay waad garanaysaa xilliga xukuumaddaasi jirtay dadka xisbiyada xildhibaanada ugu badan ee soo gala xafiisku kuwii xisbiga wadani bay ahaayeen waayo waxaanu kala saarnay siyaasadda iyo shaqada ayaanu kala saarnay waxaan rajaynayaa inaad aragtida ku sii shaqayn doonto hablaha ila dabaaldegaya halkan jooga dhammaantood mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo mahadnaqayaa waxaan ku darayaa nisbada Hargeysa biyaha hesha maanta 40% bay ku dhowdahay 14% maaha kan imika markaynu furno maanta mashruucan dhamaaday xafladii u harsan tahayna 60% ayaynu filaynaa inay noqoto taas ma yaro waadixinaya wasiirka iyo maareeyba dabcan waxa weeye iminka meesha yimaadeen marka waad mahadsantiin